sharafta leh oo rag iyo dumar leh dhalinyaro iyo odayaal intaba leh waa maasantihiin waa in salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waqtiga oo gaaban daraadiis iyo dadka oo muddo joogay waxaan rabnaa warka inaan soo koobno sida la socotiin galabta waxaan u ballansanayn sida halkaas ka cadba inaan u diyaar garowno banaanbixii aan ku ballannay beriyo sabti ah inaan qabanno oo midowga musharaxiinta oo annagu aan ka mid nahay ku baaqay in berri la qabto saa ogtihiin mudaaharaadkaas xukuumadda xilgaarsiintii annaga waan ka wada hadalnay waan ka heshiinay in si nabada uu ku dhaco annaguna qabanqaabadiisa aan leenahay baaqiisa aan leenahay abaabulkiisa aan leenahay ayaguna amniga inay sugaan oo mas-uuliyadda ka saaran amniga ay qaataan guddiyaan u bixina arrintaas ku saabsan ilaa heerka ugu sarreeya yaan ka wada hadalnay laakiin waxaa moodaa in go'aanka iyo talada xukuumadda xilgaarsiinta oon la fadhinaba inuusan gacanta ugu jirin oo go'aanka gacanta ugu jiro ninka keligii taliska xilligiisii dhammaaday ee madaxtooyada weli sida sharci darrada ku dhex fadhiya wuxuu soo amray maanta in la xidho jidadkii oo dhan oo laga soo mudaaharaadi lahaa sidaa la socotaan waxaan ku heshiina barkulanno tiro badan oo kala duwan ilaa 6 gaaraya inay dibadbaxayaasha isugu yimaadaan kabacdina sidaas loogu daadego daljirka dahsoon wuxuu amar ku soo bixiyey galabta in jidadka dhan la xiro sidoo kale barkulanadii la xiro ciidankii ku soo amray inay joojiyaan mudaaharaadka qoladii xilgaarsiinta ee xukuumadda ahayd wadahadalka kula jirnina wax tale oo gacan ugu jiro iyo wax ay yeeli karaan iyo waxay samayn karaan toona ma jiro laakiin hal waxay samayn doonaan shahaadatu zuur inay furaan oo laga hadashiiyo oo saacadaha soo socda ay hadlaan ay nagu been abuurtaan oo ay been ka sheegaan wixii aan ku ballanno idilay samayn doonaan siday ninkaas ugu markhaati furaan oo shahaadatu zuurna ay u sameeyaan keliya ayaan ka filaynaa inay sameeyaan sidaas daraaddeed saakay fadhigii oo bilaabay midowda musharaxiinta ilaa hadda aan ku soo gaaray waxaa go'aan lagu gaaray inaan mudaaharaadkii beri aan dib u dhigno mudaaharaadka dambe oo aan qabanqaabadiisa yeela doonana aanan amnigiisa ku hadlaynin qolada xukuumadda xilgaarsiinta ah ee midowgu isaga oo mas-uul ka noqdo sugidda amniga mudaaharaadka oo annaga aan suganno amnigeenna taas ayaa lagu heshiiyey saas daraaddeed waxaan kaga curdaaranayaa in hawshaas a u sii diyaargarooben berri ay dib u dhacayso aad nala qaadataan arrintaas ayada ah qodobka labaad ee u gudbaya waxaa waaye keligii taliska sharci darrada ku jooga xilka madaxtooyadana weli dhex jiifa yaa waxaan ka shaqaynaya hal wuxuu caddaaday fursadda aan siina annaga xukuumadda xilgaarsiinta iyo ra-iisul wasaaraheeda wuxuu ahaa inaan fursad siino haddii ay wax ka qaban karaan maadaama mas-uuliyadda amniga iyo siyaasaddaba dastuurka uu siinayo ra-iisul wasaaraha maadaama madaxweynihii xilligiisi oo dhammaaday oo ay tahay xataa inuu asaga la wareego inuu kaalintaas qaadan karo inaan kala hadalno waqti siino hoga tusaalayno taageerno annaga iyo dowlad goboleedyada iyo beesha caalamkaba arrintaas waa laysku raacsanaa laakiin waxaa moodaa weli meesha inuu keligii taliskii sharci darrada ahaa ee xilligiisii dhammaaday oo ka taliyaa moodaa oo ay tahayba aysan wax go'aan oo talaa gacanta ugu jirin inta kaleoo ka soo hartay asaga ninka maanta joojiye mudaaharaadkana waa asaga ninka amre askarta inay jidadka xidhaan waa asaga ninka wadahadalka inuu fashilme ka shaqeeyeyna waa asaga sidaas daraaddeed waxaan u diyaar garoobaynaa dagaal adagoo dheer laakiin ah mid oo nabadeed oo saan ku balan hadda ka hor wixii la dhihi jiray civil resistance ama ka hortag ama iska caabin madaniya inaan samayno sababtoo ah keligii taliska intuu curdunka yahay oo bilaagu yahay haddaan la iska qabanin marka uu xididaysto xoogaysto layskama qaban karo haddii la iska qabtana koostigiisa ama qiimihiisa qaali ku kacaya sidii keligii taliskii hore ee 21 sano dalka xukumayo oo kale oo nagu kacday inaan 30 sano ka soo kaba weyno oo dawladdeena dib u soo celi weyno markay diriirso ka dhaxmartay hadda intuu bilaagu yahay oo curdunka yahay oo isku dayayo inuu awood samaysto inaan iska qabanno oo aan muqaawamayno oo aan ka hor nimaadno oo aan diidno oo jidka u istaagno koostigeeda hadduu yar yahay annagaana diyaaro inaan ku hogaamino sababtii kale berri wuxuu noqonayaa koostiga ama qiimaha waxay ku fadhi doonaan mid qaaliya ku fadhi doonaan taariikhdaasna waa soo marnay hadday maalintii nimankii militariga inqilaabka kala qayb galay rajiimkii hore ninkii hogaaminayay ay naga qaba lahaayeen
sababtoo dadkii inqilaabka sameeyay waxay ku heshiiyeen bil ka bacdi in xukunka lagu celiyo dimuqraadiyadii iyo dawladdii rayidka ahayd laakiin indhahay ka laabteen lama gaarin soo u lahaa noo kaadiya suga waxaan isku aadinaynaa ayagana ay uga aamusnaayeen saddexdii ninoo istiri oo ugu way aragsanay saraakiisha istiri war waxaan suuragal maahana maalin cadow toogtay shirqool iyo qiyaamo u sameeyey 22 sano dalka uu xukumayay dagaal sokeeyna ku dhamaatay saas daraadeed dadka waxaa laga yaabaa inay kaaga darin ay darbiyada u jiifaan ay guryaha ugu dhuumanayaan haddaan kale talis hadda la iska qaban intuu tabarta yartaa la iska qabanin markuu tabaraysto qiimihiisaan uu kacaya oo qaali noqonaya sidaas daraadeed uu diyaar garoobayna waa la soo sheegi doonaa maalinta kale ee mudaharaadka amnigiisana annagaa suganayna kumana halaynayna xukuumad dambe oo xilgaarsiin ah oo tacbaan ah oo wax tabar ay leedahay aysan jirinin iyo meel ay talo ku leedahay aysan jirinin sidaas daraadeed waxaan rabnaa inaan u diyaar garo arrintaas ayada ah shacabka Soomaaliyeedna meel kasta joogaan u sheegno annaga inaan fursadihii bixinay wada hadalka aan ku wareejino xataa ammaanka ayaga oo aan intaasna aan sameeynay dad badan aan la hadlayo leh war nimanka meesha jooga waxba ma hayaan waa ogeyn inay waxayaan inay waxba haynin laakiin dadka waa inaan tusnaa war ninkan kaligii taliska ah ee sharcigiisii dhamaaday nin socdo ma aha taladan nabad ku dhibayo ma aha waan ogeyn laakiin waxaan ku qasbanayn dadka inaan tusno oo ay nala arkaan oo qof walba Soomaaliya guud iyo dibad joogaba indhiisa inay ku aragto culayska iyo waxa dalka aan hor taaganahay iyo waxa aan la mucaamalayno iyo nooca uu yaalo fariinta ugu dambaysa waxa uu dirayaa askarta ka tirsan ciidanka ee maalin jidka la soo dhoobayo maalin leeyahay mudaharaadkii waa ogolaanay xiriirna ku noqda haddana leeyahay jidka xira haddana sidii la rabo loo isticmaalayo oo sidii la rabo laga yeelayo marna jidka lagu soo daadinayo marna laga qaadayo marna gabdhaha la dhashay wiilasha mudaharaadaya walaaliina xabadayna leeyahay waa inuu aqliga xigmadda inii soo noqdaa waa in aqliga iyo xigmadda inii soo noqotaa oo dadka maaragtay rayidka ah ee shacabkiina ah ay walaalihiina ah hooyooyinkiina ah oo abayaashiina oo maaragtay qoysaskiina ah inaan linka hor keenin nin kaliya talisa oo bari wada cilaa kaaga tagi doona oo kaaga dhaqaaqi doona mas'uuliyaddan adiga kaaga tagi doona inaadan daba joogin laga rabaa oo mas'uuliyadaas aad qaadato waxa ugu yar oo sameey karta waxa waaye iska dhig labiskiisa gurigaada aad oo ka nabad gal gurigaaga aad ka tag intuu ku isticmaali lahaa oo dadka ka hor keeni lahaa oo dhiig ku gali lahaa oo bari lagu raacdaysan lahaa waa ogtiin oo kuwii annagana soo weeraray 17 December hadda meel ay ku hoydaan ilaahi maalin kasta cafisayna weydiistaan jid kasta ay taagan yihiin dambi kala isku galinina idinka naftiini iyo kuwa kaleetaba dambi isku galinina waxaan ku soo gabagabaynaynaa inaan inkaga mahad celiyo sida ugu heelantihiin oo aad diyaar ugu tihiin inaad kala taliska ka hortimaadaan dimuqraadiyadan ugu heelisaan dadnimadiinana aan muujisaan haddaan maanta intiinaan in lamid aysan muujinin dadku waxay galayaan gacan dulaysi iyo gacan wax u eg gumaysi galayaan marka aada inkaga mahad celinayaa taageerada joogtada ah iyo sida ugu heelantii arrintan waana mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh